والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أخوتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ساك رنتي وحا إنoo farxad weyn runtii aan la qiyaasi karina inaan halkan iskugu nimid bilowgii wajigii ugu dambeeyay ee wadada isku xidhisa Dilay Boorama. waa bilowgii wajiga u dambeeyay oo ah 12 kilomitir iyo badh iyaan saaka halkan u joognaa. runtii waa farxad weyn maalintan bilaabaynay maanta waa waxaan la qiyaasi karin. saaka halkan waxaa bilowgeedii ah 6 kilomitir ugu horeysay 12 kaas oo tulli ka soo bilaamaysa oo xagga Boorama u kacaysa. 6 kilomitir runtii yani wixii aan soo marnay ka dhibeeriyay marka dhinaca ka eegto laakiin waan ku dhameynaynaa waqti runtii ka yar waqtigii aan ku talagalay waayadii hore insha Allah. waxaan markaa halkan mahad ugu celinay horta marka horeysa bacda Allah ilaahay horta mahad iskale. waxaan ilaahay kadib mahad u celinayaa dawladda Soomaaliland oo runtii hawsha maanta aan bilowna iska xil saartay oo nagu tabarucday 6 kilomitir iyadoo aan ka faa'iideysanayo maanta haddana meediyaha. waxaan leeyahay contractor anagu ma lihin haddana sardan dawladda Soomaaliland. contractorska waxa loo siiyaa installments baa loo siiyaa si haddii shaqada ay dhameen waayeen wax loogu control. annagu salle xajacladii baan leenahay annagaaba wax ku darayna wax maartaan ka qaadana maahin. marka faa'iido kama rabna annagaaba wax ku darayna. marka dawladda waxaan ka codsanayna inay noo soo deyso hal mar wixii ay ku tabarucday oo loo tacaamulin sida contractorska ama ragga contractska qaata. ma haddana waan u celinaa runtii. waxaa kaloo halkan uga mahadnaqayaa runtii oo maanta mahadnaq mudan shacabka reer Jabuuti oo gacantii ayna siiyeen ilaahay mahada ka gaadhay wajigeedii uu hor taagan yahay oo rollertii halka taagan tahay. labadii xabbe kale oo grader iyo Chevrolet ay soo socdaan aad baan ugu mahad celinaa shacabka reer Jabuuti runtii wayna gacan qabteen wayna ag joogsadeen. waxaan saleenahay waa bilow ee tii dambeysay maalinta kalena oo ku soo noqonayna idinkuna waxa uu muqaadanina inay tahay kaga dharagnay. waxa kale oo mahad celinayaa runtii oo maanta aan walaalihiin kulligeen aan marxaatida ka gashanay mahadnaqa runtii. dhalinyaro wax barata oo arday ah iyo dad meel iska joogo la biilo oo qaahiro degan qaahiray degan yihiin ma shaqaystaan laakiin waa la biilaa. wayna soo xasuusteen habeen hore ayay la soo hadleen waxay soo direen $2,500 ما شاء الله. 1,500 waxay yiraahdeen jidka ku dar $1,000 waxaad siisaa abaaraha bay yiraahdeen Sheekh Cabdullaahi abaaraha waan geeyay xafiiska $1,000 1,500 waa ka gudoonay. nimankaasi runtii waa niman dhalinyaraha loo duceeyo inuu ilaahay u fududeeyo waxbarashadooda inuu ilaahay muraadkoodana siiyo. waxa kaloo ka faa'iideystay halkan ugu mahadnaqaya Dr. Yacquub Awaadan oo joogay Sweden oo bulshada degan Sweden bil walba ka qaadan lacag bil walbana lacag joogta inaga soo gaadho runtii. waxay ku bilaabeen 500 maanta waxay socotaa 1,000 iyo waxoogaa bil walba. marka waxaan injineer Yacquub ilaahay isaga Dr. Yacquub Awaadan ilaahay isagana ka siiyo maxaa ajar iyo xasanaad insha Allah dadaalka uu galay. sidoo kale jaaliyadena kala duwan ku nool maxaan ku dhahay UK iyo Switzerland iyo Denmark iyo maxaa Khaliijka iyo North America oo inkastoo gacantooda ay maaragtay lagu yar tahay laakiin na soo xasuustay iyagana aad baan ugu mahad celinayaa runtii. dhammaan inta aan sheegay oo dhan iyo bulshada reer Awdal ee joogta Boorama iyo agaarkeeda oo runtii mahad ballaaran leh oo markaan idiin sheego ilaa imika lacagta ay bixiyeen ay gaadhaysa 1,200,000 iyo xasuus iyo umaleynay Boorama inta bixisay. waxa weeyaan ka badanna way bixin karaan. hawshanna waxaan doonaynaa maanta in gacanta laga qabto la isbarbar taago haddaan Boorama joogno haddaan Jabuuti joogno haddaan Addis Ababa joogno iyo haddaan xukuumadda maaragtay xukuumadda nahay. waxaan rabnaa in gacmaha la isqabsado oo wadada iska dhamayno inta hadhay. qodobka ugu dambeeyay xusuusinaya waxa weeye khaasatan diasporada ama dadkeena dibadda jooga sheekooyin baa jira baryahan in maxaan ku dhahay hay'ad caalami ah ay naga caawinayso jidka ama iigada ama World Bank haato shaqaynka safiday طريقة أود حياة دلا يبورما وحي هذا أو شقة كل مجرد وشعبك هي حكومة سوماليلاند. حكومة سوماليلاند هو 4 كيلومتر بحسي ودما يسترتي 6 كيلومتر ما أنت بيلو إذا نتهاجنا هاي هي شعب كرير بورما أمرها أو دلوا دستي يقولنا 6 كيلومتر حاجة حاجة.
shaqo kuma laha hay-ad ama igaad ama World Bank jidka dila iyo boorama isku xidhay hawsha halkii bay noo taagan tahay halkii baan tabaruc ka sugaynaa halkii baan gacantiina ka sugaynaa walaalayaal jidka marka loo dhaqaaqo xagga waqooyi loo jeesto xagga loo loo jeesto markaas ay noo taala wixii hay'ad ka qayb qaadanayay iyo xooggeena iyo taarkeena laakiin kan ayaan lagu khaldamin waa shacabkeena iyo dawladdeena wali waxaan taaganahay tabaruc la soo ogaado ha lagu ogaado warbixintaas ay marmarinaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaqmeedyadii iyo ganacsatadii iyo culimadiinkii hawsha wada way wada jooganeen ku horeeyaan bay ahayd jaamacadaha jira lagu oqon bariyahan dambana anaguna bilowna ku soo beeray sunnada fiican ee iyagu ay noo bilaabeen ansarda iyo gudidoodu ay bilaabeen ayaan anaguna ku soo darsanay meel khayr loo boorama maanta la isugu yimaado masaajidka markaad ka baxdo meel ka fiican maanta garan maayo halka waa meel khayr leh magaalada saad ogtiin way cuna qabataysid magaalada boore cuna qabatayn dabiici ah ku aadanaa runtii dhinac walba ah waxa jidadka Allah idinka furo cuna qabatayn hadday idin soo martay intii halka joogtay in ka maqan oo ay wax ka qaadeen ayaa cuna qabatayntii ka qaaday inta yar Xasan sheegay Dr. Xasan uu sheegay Professor Xasan ayaa ka arsan cuna qabatayntii in lagu beeyo furo waliba aad iyo aad tan maanta aan taaganahay waa critical madaxweynaha Soomaaliland iyo dawladda aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waad ogtihiin oo 2 sano ka hor magaalada Boorame laami mooy xataa jid cad hagaagsan runtii ma lahayn amniyana waxba been sheegan ma lahayn maantana tanna waa highway-gii magaalada geliyay oo waa la isugu tagay xaafad waliba gooni bay u wadaa iyadoo dawladda hoose annaguna xagga barigaanu kaga nimaa camuuda magaalada waa soo dhaxgalay durba tartan iijaabiya oo fiican ayaa socda deewaan ninkii dhinaciisa ka baxdo waxaan arkayaa maanta xogiyada dawladda hoose waa jooga halkan xagga jidadka aagiishay maaha laakiin wuxuu yimi moral support iyo inuu cashar ka yar qaato ana laftayda saasaan diyaar baan marka waanu tartabi waanu iskaashan kolba wixii qof kuwa kale la siiyay la soo haneeyo waxaan leenahay qoladana naga hawl badan gacanta loo badiyo qoladan hasardaan naga hawl badan runtii inta yada kale meelo kale wax ka helalaayo waana ka hawl koobanahay maca dawladda hoose dakhli bay leedahay joogta jaamacadda Camuud hawsha loo tiraaba gaaban wax barinta ka sokow jidku waa 3 kiiloomitir buu ahaayo 2 kiiloomitir iyo bad horaan u dhamaynay nus kiiloomitir kale dawladda hoose aan isku darsanay wixii aynu waan ku wareejinay deewaannu barbar taagnaan laakiin qolada asdarda way naga waajib ballaran tahay waa heer qaran waa heer gobol waxa la igu yiri waana runtii wax la baciidsada maaha ilaa loo yacdaan soconaa bay yiraahdeen waa safar dheer ha lagu taageero assalaamu calaykum wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah mahadle inta iga horeysay mahadnaqeen annagoo mahadnaqaya noocu doonaba ha ahaado xasaarka magaalada Saaraa waxaan maleeyay inuu gabay baan ku sheego waa meel dalkii kala ka xidhan oo dariiq jirin nin diyaarad raaciyan inaan deynba mooyaane waa meel ninkay dani tiraadaal ku soo galo horaan marita waa ka baxaynaa insha Allah taa laga bixi muddo dheer baan hadalkaas sameeyay maanta waxa weeyaan alxamdulillah haddii in badan si wanaagsan loo socdo in yar baa kadhkadhi hadhay waayahay وانا حق اللو بديه سعود كأنه بديه حقا إن قعدت اللو سارة أما اللي سوى جوك سدا واجب بيكون هل كان إلى قرب هذا اللي هدان كهذا قرب هذا اللي عشورة اللي هذا واحد تمال بورما جيت كي قرب هذا اللي تبقى عشورة اللي هذا سواء كان متى وده واحد ودار بيو مال الله مال أيهين مجرد meel ceel ka qodan yahay oo halkaasi ma jirto halka hadaan ma ka dhaqaaqnana de casarkan gaadhin ilaa wajaalay halka kala gudban tahay garbahaadle taana cidda ku shuqul leh gacanteeda arrinkaasi ku jira ha xusuusnaato sida sheekhu sheegay beerihii iyo dadkii deganaa iyo dhulkii de xaggan uu inaga wada xigaa waa cidhiidhi dhulkani waa yar faalal nicmada ka soo baxda waa la isugu iman lahaa halka hadaan taa kaga hadho waxaan ku celinayaa shalay waxaan ka nimid luqaya iyo farsal wixid iyo gargaara jiidaasaan ka nimid taa kuladii loo geeyay ayaan halka ku soo qaybinay
dadkaasi waa inoo baahan yahay goor kasta waa dhiig joojin waxaa tegey waa dhiig joojin nolosha xaggan jirtaa ma jirta halkaa walaalaheennaa dhimanaya ayaan gacanta alla kala joojin inta ilaahay ama raxmad siinayo ama wuxuu kordhinayo taasna waa iga dardaaran maanta gaadiidku horeeyay midday qaabta kale soo socotay aad baan siday horab loogu sheego mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa sidii la sheegay dadkii shakhsi ama hay'ad ahaa ee ka geystay waddada aad baan ugu mahadnaqay waxa xusud mudan runtii oo hadalka ka yar maqnayd walaaladana ilaahay adduunyada siiyey ee hargeysa oo badan sida habshiil iyo tala soomiyo Omar raggii nooca ahaa runtii raggii u taganaa ka mid ahaa sida sujaacnimada leh ay noogu taakuleeyeen baan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxaan Omar u siraacinaya waliba imika warkay soo gaadhay 500 kiis intaas oo saliida uu ku taakuleeyay walaaladiisa abaaro ku qaadeen kun kiish iyo saliideedii murtida ku taakuleeyay walaalkeen Omar jaamac aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyadoo cid u doonin cidina u tagin walaaladii uu soo diray aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan cidii wax ka qayb qaatay aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baad mahadsantahay jazaa Allah khayr baan leenahay waan og ما وضع سامسون ولا وحوي وعن دابشيل وقرض بحسابها هذه ترى صومبا دابشيل ورك يجاني سودان سلمان مركان جوجنا لوج هيا ده ورك يجوا بين تاسو دابشيل ما فرت كسو فيقين وصور إمكان هذا ما صدق ما لنا ترى صومنا وبحسي عادي عاد بدو ما سنتي ما لنا هاي واحد حوي دغدي لهي نسيا ضدك إنه حكسيسه عاد بدو ما سنتي ما لنا عاد بانيكم هنقينا وحوي وحال جروا ودجرka way waxaan boorinaynaa waqti wadajir in wax lagu qabto waxaan boorinaynaa in wax kasta ay abaarta iyo haday jidta wax kala tahay intii wax garanaysaa in meesha iyada si adag uga qabtanaadiyadu boorinaynaa inta ku hawlan ee gacanta ku haysan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa halka Suudaan Salmaan uu sheegay ee xaalad aanay Suudaan Salmaan qolada ugu hoosheeyay baan hayn ee degdeg luqaya iyo magaranaysa riiga gargaara bari magaranaysa garbada dar qolada ugu hoosheeyay baan hayn runtii labadayadani salaadinta kala saxibada naga maqanaysa matar iyo wabar iyo waxa weeye iyaguna way naga sukayeen qaybta saddexay ku jireen waxa weeye waxa uu maray u soo mareynayna waxa ahayd runtii in waxna u geyno soo aragna waxay qabaan inta ka maqanay doogan tusnay ahayd maanta lagu yeeyo joognaa Suudaan Salmaan iyo riyaashi waa nagu jiray waxa weeye waxa ku dhawaaqay xukuumadda Soomaaliland waa dhawaaqday aad buu dhawaaqday runtii aad bay ugu mahadsantahay waan tabayay markii hore waan tabaynay waxaan dib dhac baa ku jiray laakiin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ilaahayna ha ku garab galo jidkan maanta qaybtan ka jeedno waa qaybtii xukuumadda weey waan ognahay 4 kiiloomitir iyo 300 bay soo dhameeyeen maantana 6 bay wadaan kulli 12 kan waxaan farta ku fiiqaynaa in leenahay 12 waxaan isleenahay ugu go'aybanina leenahay sidaa uu sheegay professorku kala qaybina waxa weeye hal laga daayo waxa weeye dad macaash ka doonaya maahayn waxaan ku boorinaynaa cidii artaa xil saaranay wasiirka iyo umuurta cidii hawsha gacanta ku haysan waxaan jeclaysanaynaa amaan inay si duuduub hawsha ay soo wadaan waxa weeye aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baynu ugu faraxsanahay hawshan aan qabsanay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa cid kastoo ka talaabo ka qaaday cid kastoo jidka wada waxa weeye nuxurkeeguna waxa weeye xeeb inaan had yaalada aan u furno oo dadka aan u furno kalluunka iyo hawlahan u furno aad iyo aad baad u mahadsantahay halkan ku raagay waan salaamayaa waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.